maanta waxaan leeyahay dadnimoy oy gobonimoy oy dadka ku faanaya qabiilka kuwa ku faanaya hayb kuwa sheeganaya inay yihiin laandheerayaal waynu gumuuni maanta ku noqoteen walaalkiin baa gubteen qof islaam oo idin la mid ah ayaa ka faanaysaan oo wada ka faantaa waa faami jirteen hadde aad dab qabadsiiseen maantaan garooshiyeed ku haysan weli war xaggee qabtay madaxdii geeska afrika nin madaxweynaha oo af soomaali ku hadlaya oo u tacsiyey ma maqal xitaa xaggay jiraan waayo waxaa kale wax laakiin jiray ma qoyska hadda inagu aynu ku hadlayno saa uga hadlayno madaxweynaha uu hoostiisa ku dhintay waa farmaajo erey mool walaa tegis u tagay iska daaya ka ku xiga ee ra'iisul wasaaraha ee weliba haybta dagaalamaysay ma hadlin dad inagoo kala qaylinaya mee madaxdii mee gobonimadii mee dadnimadii mee qarnimada sheeganayno maanta waxay ahayd in loo wada kaco ma aha in qoyskan bariis la siiyo ama dhar la siiyo in loo kaco waxan wax laga qabto adeer maal boy dhacdaa markaad weydiinaysaad leedahay arrimo noocan ma dhacan aniga maxamed ahaan haybahaasan ka mid ah waan ku quraacdaa waan ku qadeeyaa waan ku seexdaa waxaa la gulqaniyada jaahilka maalba 10 jaahil bay igu hor yimaada oo igoosta qayb ka mid ah jirkayga waxay dhegteedaa soo gaarsiiyaan taay ka hadleen meeta kalama maqashiyo laakiin waxaan la kulmaa haddana markaan 100 noocaasa soo jiiro qof bini aadmi aan la kulmaa oo aan ku socdo dhowr saacadood oo dambe oo fahmo qiimaha iyo wada dhalashada iyo waxaan sunna markaan soo xusuusto taariikhda noloshayda aniga maalintii uu riisan iskuul gelayay mar baan damcayna cararo uga dhaxaysa rag waaweyn oo ila daa oo caqliga ku daafadii iyo ku jiray isla weynaanta oo macallimiin sheeganaya imtixaanka iga qaadiyo nin ka mid wuxuu igu yidhi maxaa ku helay halkan soo inay hebel ma jid ma birtiinni iska tumatid toddoba jir baan bal ka waran ummadda intii meesha joogtay oo aamusiin lahaydna qosol bay qowladii wada waaxeen ilmaha intaa leeg maxaa ku dhici kara waan xusuusnahay